wardegdega oo hadda naga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo ahaa madaxweynaha kilka shanaad guddiga fulinta ee dowlad deegaanka Soomaalida oo maanta shir degdeg ah isugu yimid ayaa xilkii kaga qaaday Cabdi Maxamuud Cumar waxa la sheegayaa in si ku meel gaar ah loogu magacaabay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Cabdi Maxamed oo ku magac dheer ilka case arrintan ayaa timid kadib markii maalinimadii sabtida ahayd qalalaasaha ka bilowday gobolka Soomaalida oo ku fiday guud ahaan dalka Cabdi Maxamuud Cumar oo diiday markii hore in xilka laga qaado ayaa ugu dambeyntii ogolaaday in si ku meel gaar ah loogu magacaabo madaxweynaha deegaanka Axmed Cabdi ilka case sidoo kale wararka hordhaca ah ee naga soo gaaraya Jigjiga ayaa sheegaya in laga qaaday magaalada ciidamadii liyu booliiska iyadoo gebi ahaanba magaalada Jigjiga ay la wareegeen ciidamo federaal ah oo ka socda militariga Itoobiya xilli hore saakay ayay ahayd markii Cabdi Maxamuud Cumar uu kulan la yeeshay baadariga ugu sareeya kaniisadda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Jigjiga